بسم الله الرحمن الرحيم أمي ونعكسن قضبض ورك ورباهين تعيش ورك دين سوحة الدوران باش ريح حاج سليمان وقاطع على الشركة مقاضي الوصم الرابع وكقد واقع رئيس الوزراء قارة حاف أول الشعية قرشها ولكلها شيسكي ولقى لدولة فدرالك الصومالية دولة الصومالية عرق كل وجسي دولة جيني بيساو كينيا عندما إثيوبيانا ولو رجع قبل كيران فرماجو وقلاضي إن إثيوبيا بحسين رخصة حولها كده فبربرة مدحين فرماجو أو بالشرف قدونسية قدي قبل قابض القرن معلمة حرية الصومالية قدومية محكمة أو صح اللودلي يدلل كدعي شبالله سي مقدشو وررك دبدنا waxaa u dooran duqeymo ka dhacay dalka Liibiya oo faahfaahin dheeraad ah ay ka soo baxayaan waxa daawadayaal intaas waxay qaar ka tirsan qodobada wararka warbaahinta wararkeedina kuwada ugu doorkan hadii aad ku cusub tahay barta YouTube-ka fadlan subscribe oo gujiga baleelka saaxiibadaada share u dheh si aad u heshid wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka markaan soo galino barteena YouTube-ka markana kusoo dhawaada daawadayaal warkii oo faahfaahsan madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu ogolaaday sida wararka lagu helayo in Itoobiya bixiso ruqsadda xoolaha ka dhoofa dekedda Berbera ee Somaliland xoolaha ka dhoofa dekedda Berbera ayaa waxa la sheegay in Itoobiya ruqsad 4% ay ku lahaanayso safar aan hore loo shaacin oo Muqdisho ku yimid toddobaadkan wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Itoobiya Axmed Shide oo kulan kula qaatay madaxtooyada ayaa waxa la sheegay farmaajo in ay isla garteen in qoonda laga siiyo Itoobiya xoolaha laga dhoofiyo Berbera ee loo suuqeeyo qaliijka Carabta gaar ahaan Saudi Arabia warbaahinta ayaa ogaatay macluumaadka kulankaas ee dhexmaray madaxweyne farmaajo iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee federaalka Itoobiya Axmed Shide isla markaana ah madaxa xisbiga talada haya ismaamulka Soomaaliya Itoobiya wasiirka wasaaradda maaliyadda ayaa waxyaabihii uu farmaajo kala hadlay la sheegay inay ka mid tahay in Itoobiya ay suuq bigeen ballaaran u sameeyso xoolaha Soomaalida ee la geeyo gacanka Carbeed waxa la sheegay in dawladda Itoobiya galaangal siyaasadeed ee xilligan ka sameynayso geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya waxaanay doonaysaa in kaalin mugle ay ka qaadato dhoofinta xoolaha oo la sheegay in ay dawladda Sacuudiga dhowr jeer oo hore ay cilado ku sheegtay xoolaha Soomaalida maamulka Somaliland ayaa arintan wali ka hadlin haseeshe waxa la sheegayaa in taliska Muuse Biixi Cabdi oo Somaliland hogaamiyo arintan uu ku qanacsan yahay wararku waxay sheegayaan in arintan ay keeni karto in si dadban dawladda Itoobiya ay ula wareegto xoolaha Soomaalida ee laga dhoofiyo dekedda Berbera ee Somaliland taas oo ka soo baxda macaash fara badan oo ay ku nool yihiin bulsho badan oo Soomaaliyeed wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in dagaal culus uu ka dhacay deegaanka halgan ee gobolka Hiiraan dagaalkaas ayaa la sheegay inuu u dhaxeeyay ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya ee ku sugan gobolka Hiiraan iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab dagaalka ayaa dhacay kadib markii Al-Shabaab ay weerareen saldhig ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin deegaanka halgan ee gobolka Hiiraan waxaan halkaas ka dhacay dagaal culus oo saacado socday dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqlayeen dhawaqa rasaas culus oo ay isku adeegsanayeen ciidamada Itoobiya iyo dagaalamayaasha ka tirsan Al-Shabaab ee weeraray saldhigga ciidanka Itoobiya ay ku leeyihiin deegaanka halgan oo ka tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya macda qasaaraha ka dhashay ee dhimashay dhaawac dagaalka dhexmaray Al-Shabaab iyo ciidanka Itoobiya maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabelle oo aan la xiriirnay ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan qasaaraha ka dhashay dagaalka dhexmaray ciidamada Itoobiya iyo kuwa Al-Shabaab ee ku dagaalamay deegaanka halgan ee gobolka Hiiraan wararkii ugu dambeeyay aan ka helayno deegaanka halgan ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in xaaladdu hadda ay degan tahay isla markaana goobihii lagu dagaalamay ay gacanta ku hayaan ciidamada Itoobiya beesha reer Xaaji Saleebaan ayaa waxay qaadacday shirka iyo doorashada la sheegay inay ka dhacayso magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug oo lagu magacaabay xildhibaan Cabdullaahi Cumar Maxamuud oo ka soo jeeda magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in marnaba aanay raali ka ahayn doorasho ka dhacday degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud sidoo hadalku u dhigay xildhibaan Cabdullaahi Cumar Maxamuud oo ka tirsan beesha Saleemaan isla markaana wareysiisay mid kamid ah idaacadaha maxalliga ah Muqdisho ayaa sheegay in dadka ku dhaqan degmada Cadaado ay ugu horeyn raali ka yihiin dib u heshiisiinta
iyo sidoo kale in doorashada ay ka dhacdo xarunta baarlamaanka galmudug waxa uu sheegay in loo baahan yahay cadaado in la siiyo xaqeeda oo aan dhuusamareeb la isugu darin ku qabashada shirka dib u heshiisiinta doorashada caasimada galmudug iyo caasimada galgaduud xildhibaanka ayaa sheegay in dadka cadaado odayaasha iyo siyaasiyiintooda aysan ka qaybgeli doonin doorashadaas reer cadaado waxay diyaar u yihiin laba qodob qodobka koowaad dib u heshiisiinta la sheegay oo la yidhi dib u heshiisiin dhacayda ra-iisul wasaaruhuna halkan uu keenay way diyaar garoobeen dib u heshiisiin dhaba galmudug loo qabto xisaabta iyo cid waliba waxay mudan tahay lagu kala qaato waa u diyaar garoobeen qodobkaas markii ra-iisul wasaaraha ay kuna soo dhaweeyeen hortoodana uu ka cadeeyay dib u heshiisiin in la suubinayo dib u heshiisiintaas waxa ay u leeyihiin munaasabad waxa ay u leeyihiin way ku degeen way ku qanceen ilaa kol mar haddii la xisaabtamo xisaabta ku indimaado cid waliba waxa ay leedahay ayay qaadanaysaa tan labaad waxay filayeen qodobkii ra-iisul wasaaraha madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha galmudug oo ahaa xarunta baarlamaanka galmudug in reer cadaado ay leeyihiin cadaadna ay tahay ayadana waa ku fadhiyeen sababtoo waa wax madaxweynihii soomaaliya iyo madaxweynihii galmudug ay bixiyeen dabadeedna ay ansixiyeen xildhibaanadii 89 ahaa ay ansixiyeen intaa way ku fadhiyeen doorashadana waxay ka dhici kartaa waa dareensan tahay xarunta baarlamaanka galmudug ay ka dhacaysaa oo ay ka dhici kartaa meelaan xaruntii baarlamaanka ahayn inay doorasho ka dhacdo waxa weeyaan hadee waxay tahay waa dareemi kartaa marka reer cadaado waxa ay ku fadhiyaan ama hadda aad aragtay oo banaanbaxyada iyo odayaalka dhaqanka iyo siyaasiyadda waxay ka hadlayaan waxa weeyaan maqaamkii cadaarood oo ku xusnaa xaruntii baarlamaanka in ay helaan haddii hadda xarunta baarlamaanka wax ka sarreeya oo sida gobolka oo kale ay helaan oo gobolkii waxa weeyaan sababtoo waxa weeyaan gobolkii waxaa la yidhi gobolka mudug dhuusamareeb uu ahaa caasimada galmudug dhuusamareeb wayaa la yidhi ra-iisul wasaaraha haddana waa maqlayso waxaa la yidhi waxa weeyaan shirka dib u heshiisiinta iyo doorashadiiba waxay ka dhacaydaa halkaas waxa weeyaan wax qaybay dadkaani diyaar u yihiin go-aanka doorashada ay uga dhaceyso dhuusamareeb ayaa waxaa qaatay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre oo dhowaan heshiis la galay kooxda ahlusunna ee dhuusamareeb taasi oo aada uga careysiisay bulshada cadaado xildhibaan cabdulaahi cumar maxamuud ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ugu baaqay in wax laga bedelo sida ay hadda wax ku socdaan si loo helo galmudug oo midaysan sidoo hadalku dhigay dowladda soomaaliya ayaa ciil iyo caro u muujisay dalka Guinea iyadoo dhinaca kale la sheegayo inay soo baxayaan warar sheegaya in dowladda soomaaliya ay si faahfaahsan uga hadlayso damaca dowladda Kenya ee badda Soomaaliya waxaa wararku ay sheegayaan in uu baaqday kulan saxaafadda la isugu yeeray oo uu shir jiraad u qaban lahaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad xafiiska wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa waxaa looga wacay wariyaasha ku sugan Muqdisho iyo dibadda iyadoo loo sheegay inay ka soo qayb galaan shir jiraad oo uu qabanayo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad saacad ka hor waqtigii loo ballansanaa shirka jiraad ayaa la sheegay inuu baaqday kulankii uu saxaafadda isugu yeeray wasiirka iyadoo aan si rasmi ah loo ogeyn sababaha keenay balse loo badinayo inuu wasiirka soo saari doono war saxaafadeed qoraal ah la waraadiyo lagu kalsoonaan karo ayaa xaqiijiyay inuu wasiirka ka hadli rabay booqashada madaxweynaha Somaliland Muuse Biix Cabdi uu ku tagay dalka Guinea iyo maqaamka soo dhaweynta ee loo sameeyay taas oo ka careysiisay dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxtooyada Soomaaliya ayaa ciil iyo caro ka muujisay soo dhaweynta maamuuska sare ee Muuse Biix Cabdi loogu sameeyay dalka Guinea dowladda Soomaaliya ayaa ila wareedaas xaqiijiyay inay dacwad ka dhan ah dalka Guinea u gudbinayso midowga Afrika maadaama ficilkaas ay u aragtay inuu yahay mid ay dowladda Guinea ku aqoonsanayso Somaliland oo wali aanu madax banaani helin madaxweynaha Somaliland Muuse Biix Cabdi ayaa gaaray caasimadda jamhuuriyadda Guinea ee galbeedka qaaradda Afrika oo ay martiqaad rasmi ah ka heleen madaxda ugu sareysa ee dalka Guinea madaxweynaha iyo wafdigu hogaaminayay waxaa garoonka caalamiga ah ee caasimadda jamhuuriyadda Guinea ku yaala ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda dalka Guinea
mudane Mamadi Toure. waxaa intaas kadib wafdiga Muuse Bixi uu hogaaminayay waxa garoonka caalamiga ah ee caasimadda Guinea ku yaala looga qaaday helicopter oo qaas ahayd taas oo xubnaha madaxweynaha u horkacayay geesay qasriga madaxtooyada ee wadanka Jamhuuriyadda Guinea ee dhaca galbeedka qaaradda Afrika sida uu warbaahintu u xaqiijiyay afhayeenka madaxweynaha Somaliland Maxamuud Warsame. Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa waxaa la sheegayaa in uu qorshe ballaaran uu ka lahaa heshiiskii uu la galay madaxda ugu sareysa dowladda federaalka ee Soomaaliya. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa waxaa la sheegay heshiiskii dhawaan uu la galay dowladda federaalka ee Soomaaliya in uu ka damacsanaa qorshe u gaar ah sida wararku ay sheegayaan. Xaaf ayaa heshiiskan ka leh dano badan oo siyaasadeed si la mid ah qorshaha dowladda Soomaaliya ee heshiiska maamulka Galmudug iyo Al-Sunna oo dhawaan kula gashay magaalooyinka Cadaado iyo Dhuusamareeb. dad ku dhow xafiiska madaxweynaha Galmudug ayaa xaqiijiyay in Xaaf uu laba ujeedo ka leeyahay heshiiskii uu la gaaray Farmaajo. tan koowaad ayaa lagu sheegay in dib loo dhigo muddo bilo kooban ah doorashada Galmudug lagana gadaal mariyo midda Jubbaland si uu u qiimeeyo doorashada Jubbaland. Xaaf ayaa damacsan inuu la xirto Axmed Madoobe haddii uu ku guuleysto hoggaanka doorashada Jubbaland oo la filayo in dhawaan ay doorasho ka dhacdo magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. haddii dib ugu soo laabto kursigiisa waxaa la sheegay in uu toos ula xiran rabo madaxweynaha Jubbaland isla markaana uu ka hor imaan rabo rabitaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Farmaajo. arrinta labaad ayaa lagu sheegay in lacago balaayiin dollar ah oo dowladda Soomaaliya ka hayso Galmudug uu ka damacsan yahay heshiisyadii uu la galay madaxda ugu sareysa Soomaaliya. Xaaf ayaa doonaya inuu soo qaato lacagta Galmudug ee lagu hayo akoonada dowladda federaalka ee Soomaaliya kadibna uu ka hor yimaado rabitaanka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xaaf oo lagu tilmaamo siyaasi marino badan oo siyaasadeed adeegsada ayaa dhawaan heshiis ay baahi keentay balse aan rabitaan ahayn la galay madaxda ugu sareysa dowladda federaalka ee Soomaaliya kadib markii uu ka soo baxsaday maamulka Al-Sunna ee ku sugan Dhuusamareeb. dowladda Soomaaliya ayaa xoog iyo xoolo isugu geysay sidii ay doorasho uga qabsoomi lahayd Galmudug. Farmaajo iyo Kheyr ayaa damacsan in Galmudug ay ka dhisaan maamul la mid ah kan Koonfur Galbeed Soomaaliya oo adeecsan amarada dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ay helaan madaxweyne la mid ah madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bixiyay bilad sharaf. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta abaalmariyay guddigii qabanqaabada munaasabadaha xuska maalmaha xurriyadda ee 26 Juun iyo 1 Luulyo. madaxweyne Farmaajo ayaa xarunta madaxtooyada ku guddoonsiiyay xubnaha guddigaas bilad sharaf oo ay ku muteysteen hawshii ay qabteen. sidoo kale waxa uga mahadceliyay shaqada hufan ay u qabteen dadka iyo dalka Soomaaliyeed. madaxweynaha ayaa tilmaamay in maalmaha xurriyadda ay yihiin astaan qaran oo mudan in la weyneeyo si loo xoojiyo wadajirka bulshada ubadka Soomaaliyeedna loogu barbaariyo wadaniyad iyo daljacayl. waxa kale oo guddiga ku booriyay inay dejiyaan qorshaha xuska maalmaha xurriyadda ee sanadka soo socda maadaama ay ku beegan tahay 60 guuradii markii Soomaaliya xornimada ka qaadatay gumeystaha. ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliya ayaa xubnaha guddiga qabanqaabada maalmaha xurriyadda iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed uga mahadceliyay sida ay dal iyo dibad uga qayb qaateen xuska maalmaha xurriyadda dalka. ugu dambeyntiina dilal ayaa ka dhacay Muqdisho iyo gobolka Shabeellaha Hoose. kooxo hubeysan ayaa tuulada lagu magacaabo Sagaalaad oo hoos tagta degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose waxa ay ku dileen nin oday ahaa oo caan ka ahaa tuuladaas kaas oo magaciisa lagu sheegay Xasan Yuusuf Baani. dilka ayaa waxa uu ka dhacay afaafka hore ee gurigiisa waxaana wararka qaar aan helayno ay sheegayaan in ninka la dilay uu mar gudoomiye ka soo noqday tuulada Sagaalaad ee hoos tagta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose oo koox hubeysan ay ku dishay iyadoo xilliga la dilay uu ka soo baxay masjid uu salaad ku soo tukaday. waa dilkii labaad oo muddo 2 bilood gudahood ka dhaca tuuladaas waxaan dhamaadkii bishii Ramadaan ay tuuladaas kooxo hubeysan ay ku dileen Cismaan Xaaji Qaasim oo kamid ahaa odayaasha ku nool deegaankaas. dhinaca kale
kooxo hubeysan ayaa waxaa la sheegay in xaafad ka tirsan degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir ay ku dileen gudoomiyihii maxkamadda gobolka Shabeellaha Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed. Marxuumka ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Saciid Cumar Xasan, waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in dadkii ka dambeeyay dilka ay goobta isaga baxsadeen, isla markaana ciidamo ka tirsan kuwa booliiska degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir ay ka qaadeen goobtaas meedka. Ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas'uuliyadda dilalka ka dhacay tuulada Sagaalaad ee hoos tagta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir. Aseeshee waxaa inta badan dilalka noocan oo kala ah sheegta ururka Al-Shabaab. Halka warkaas daawadayaal idinkaga imaanayo waa warbaahinta isha wararka markana wararka dibadda. Liibiya ayaa waxaa la sheegay in duqeyn culus ay ka dhacday goob ay ku sugnaayeen dad muhaajiriin ah. ugu yaraan 40 muhaajiriin ah oo ka soo jeeda qaar ka mid ah dalalka Afrika ayaa ku dhintay, halka ku dhawaad 80 kalena ay ku dhaawacmeen madaafiic lagu garaacay xero ay ku jireen dad muhaajiriin ah oo ku taala duleedka magaalada Tripoli ee dalka Liibiya. Sargaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha Liibiya ayaa sheegay in tirada dhimashada dadka lagu laayay xerada degmada Tajoura ee banaanka caasimadda Liibiya ay intaas ka badnaan karto. wuxuu intaas raaciyay in hadda ay shaqaalaha gargaarka degdega ah ay weli dad guuranayaan meedadka iyo dadka dhaawac ah. bayaan ka soo baxay dowladda ay beesha caalamka aqoonsan tahay Liibiya ayaa lagu cambaariyay weerarka. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in weerarka uu ka dambeeyo janaalka awoodda badan ee Khalifa Haftar. ma jirto ilaa iminka cid sheegatay mas'uuliyadda weerarka lagu qaaday xarunta lagu hayay dadka muhaajiriinta ah ee Liibiya. sidoo kale weli ma aysan soo bixin faahfaahin ku saabsan dalalka ay u kala dhasheen muhaajiriintii lagu dilay dalka Liibiya. warkii u daawadayaal xilligan idinkaga imaanay warbaahinta isha wararka waa naga intaa.